kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada kaalmoy media iyo soo kale wararkii ugu dambeeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa habeennimadii xalay ahayd ka dhacay banaanbaxyo iyo sidoo kale iska hor imaad u dhaxeeya ciidamada deegaanka oo iyagu ka careysan go'aan ka soo baxay dowladda ama maamulka Somaliland iyo sidoo kale ciidamada police-ka maamulka Somaliland xalay ilaa iyo waqtigan waxa soconaya ee gudaha markaasi Boorama iyo gobolka Awdal gudahaan ayaan kula wadaagi doonaa haday tahay booqashadaadii ugu horeysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka like noo saar aragtidaada qaybta faallada ah ee commentiga ku dhiiba sida aad u aragto waxa ka soconaya gudaha markaasi ee Boorama iyo gobolka Awdal Somaliland maamulka ayaa qaldan mise dadka deegaanka hadaba waxaan kula wadaagi doonaa sababta ka dambayso banaanbaxyada iyo sidoo kale dadka deegaanka ee qoryaha la soo baxay ee la dagaalamaya booliiska waxa markaasi ku kalifay calaamada subscribe noo taabo haday tahay booqashadaadii ugu horeysay muuqaalkana like noo saar qaybta faallada ee commentigana aragtidaada ku dhiibo wahagaaga xalay magaalada Boorama waxaa ka dhacay banaanbax aad u xoog badan oo ay dhigayaan dadka deegaanka kaas oo uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka deegaanka ee shacabka iyo sidoo kale ciidamada police-ka hadaba banaanbaxan ayaa waxa uu daba socday go'aan ka soo baxay maamulka Somaliland kaas oo wasiirka warfaafinta maamulkaasi uu ku dhawaaqay in dowladdu ay aqbashay in xeer ciise lagu qabto magaalada Saylac waxaana taas gabi ahaanba markiiba ka biyadiiday dadka ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama iyo Saylac Boorama waxay martigelisay banaanbixii ugu weynaa inta la xasuusto markaasi waxaana banaanbaxaasi xalay sida la soo warinayo ku dhaawacmay dad badan oo rayid ah sidoo kalena dad kale oo rayid ah ayaa markaasi ku dhintay sida banaanbaxa markaasi ay dad goobjoogayaal ah inuu xaqiijiyeen khasaare ka dhashay hadaba maxaa markaasi sabab u ah banaanbaxan iyo sidoo kale iska horimaadkan u dhaxeeya dadka deegaanka ee hubeysan iyo ciidanka police-ka waxa uu daba socdaa muddo dheerba gobolka Awdal waxa ka taagneed xasarad uu dhaliyay buuga ama markaasi xeer ciise lagu magacaabo kaas oo deegaano badan oo gudaha Itoobiya iyo soo kale Djibouti lagu soo xusay markana la doonayay in magaalada Saylac lagu qabto xuska ama markaasi dabaaldega xeer ciise hadaba wixii intaasi ka dambeeyay markii uu soo ifbaxay waxa durba bilowday banaanbaxyo iyo sidoo kale dibadbaxyo looga soo horjeedo buuga xeer ciise ee la doonayay in lagu qabto bandhigiisa magaalada Saylac dadka markaasi deegaanka gaar ahaan beelaha Samaroon iyo sidoo kale Gadabuursi ayaa si weyn uga soo horjeeday iyagoo ku tilmaamay inay tahay xadgudub isla markaana xeer ciise aan lagu qaban karin gudaha Somaliland xitaa aan lagu qaban karin markaasi tuulo kamid ah tuulooyinka Somaliland waxayna markaasi sabab uga dhigeen diidistooda in gabi ahaanba markaasi xeerkan uusan shaqo ku lahayn Somaliland aysan ahayn Itoobiya iyo soo kale Djibouti waxay tilmaameen in buuga xeer ciise uu yahay mid markaasi la doonayo in lagu qaato dhul iyo deegaan iyagu ay leeyihiin waxayna taas markaasi ay ku tilmaameen inay tahay xadgudub aysan aqbali doonin maamulka Somaliland oo arinta muddo dheer ku jiray waxa ugu dambeyn markaasi go'aamiyay in la aqbalay in buuga xeer ciise lagu qabto magaalada Saylac bandhigiisa dowladana ay mas'uul ka tahay iyadana ay amniga sugayso cid markaasi laga aqbalayo in ay ka hortimaadana aysan jirin hadaba maxay ku bedelatay Somaliland marka la fiiriyo maamulka Somaliland waxa laga yaabaa inuu la kulmay cadaadis ballaaran oo kaga yimid dhinaca Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti Itoobiya in xeer ciise lagu qabto gudaha Somaliland waxay u aragtaa fursad dahabi ah Djibouti sidoo kale labaduba marka waxa ay aad markaasi cadaadis u saareen maamulka Somaliland in la aqbalo in xeer ciise lagu qabto gudaha Somaliland gaar ahaan magaalada Saylac ay doortay waliba maamulka Somaliland waxa uu rabay in bandhigaasi lagu qabto magaalooyinka Berbera ama markaasi Hargeysa iyo magaalooyin kale sida Burco oo kale laakiin waliba si gaar ah maamulka Somaliland Hargeysa lagu qabto ayuu rabay laakiin waxa gabi ahaanba diiday beesha ciise oo iyadu xeerka markaasi doonayso in lagu qabto Saylac iyo dowladda Itoobiya iyo Djibouti iyada meel kasto lagu qabto waxba macnaha uma sameeyeen laakiin Itoobiya ayaa wararka aynu helin waxay tilmaameen in iyadu ay cadaadis ku saartay Somaliland in buuga xeer ciise lagu qabto bandhigiisa magaalada Saylac ee gobolka Awdal in lagu qabto ay markaasi go'aamisay dowladda Itoobiya oo Somaliland ay markaasi cadaadis ku saartay hadaba maxay ka faa'iideysaa Itoobiya wuxuu aragtaa fursad dahabi ah iyo sidoo kale mid markaasi guul ah Itoobiya iyo dadka markaasi Itoobiyaanka gaar ahaan bulshada markaasi ciisaha
buuggan xeer ciise si guud markaasi xeer ciise waa xeer hay-adda markaasi UNESCO ee qaramada midoobay ee aqoonsatay inuu yahay xeer jira, laakiin dadka Soomaaliyeed ee deegaanada Awdal iyo Boorama guud ahaan markaasi gobolka Awdal ayaa buuggan ku tilmaamay mid markaasi aan wanaagsanayn oo anshax xumo iyo sidoo kale wax dhaqanka Soomaalida markaasi ee aan raad ku lahayn ay ku jiraan. Waxaana ka mid ah in buuggan xeer ciise ay ku jiraan qodobo iyo sidoo kale meelo qaar oo aan anshaxa markaasi Soomaalida meelna markaasi ka soo galeen. waxaana kamid ah in wiilka hadii gabadha markaasi uu qabo uu waayo sodohdiisa markaasi uu aadi karo, yacni waa fahmi kartaan marka sida markaasi la leeyahay dadka markaasi buuggan ka soo horjeeda ee Boorama barnaamij ka dhigay oo hadlay ay sheegeen sidaas ay hadalka u dhigan. waxay dhaheen waa mid markaasi aan dhaqankeena iyo sidoo kale anshaxa Soomaalida meelna markaasi raad kaga lahayn. haddaba marka laga soo tago sheegashooyinkaasi waxaa markaasi buuggan ku hoos jira dhinaca kale siyaasadaas oo ah Itoobiya inay doonayso in buuggan lagu qabto bandhigiisa magaalada Saylac. Somaliland waa ay aqbashay waxayna go'aamisay in Saylac lagu qabto amnigana la sugayo. xalay markuu go'aankaas soo baxayba waxaa barnaamijyo isqabsadeen guud ahaan gobolka Awdal. waxaa soo baxay dhalinyaro hubeysan oo qoryo wata kuwaasoo diidan iska horimaad iyo sidoo kale dagaal toos ah ayaa ka dhacay saldhigga booliiska ee degmada Boorama kaasoo ay ku dhinteen dad rayid ah, askarna sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray gaar ahaan ciidanka booliiska. Somaliland saaka ciidankii ugu badnaa oo military iyo booliis ah ayay u daabushay gobolka Awdal gaar ahaan magaalooyinka Saylac iyo sidoo kale Boorama iyo Lughaye iyo dhammaan magaalooyinka markaasi gobolka Awdal, iyadoo ka hortagaysa in barnaamijyadu ay sii fidaan isla markaana iska horimaadka booliiska iyo sidoo kale dadka deegaanka ee hubeysan uu markaasi faraha ka baxo oo labada dhinac markaasi khasaare kala duwan oo midka xalay dhacay ka badan markaasi uu dhexmaro. iyadoo taasi ay jirto marka dhinaca kale waxaa muuqanaya in durba markaasi is aruursi iyo sidoo kale hub uruursiga ugu badnaa beelaha Gadabuursi iyo Samaroon ay sameynayaan. Samaroonku waa dadka sida weyn markaasi uga soo horjeeda marka la fiiriyo bandhiga buuggan in Saylac lagu qabto. waxayna sheeganayaan ay leeyihiin magaalada Saylac ma ahan magaalo ciise, waa magaalo Samaroon, waana magaalo markaasi aan lagu qaban karin buuggan iyo xeerkan. iyadoo markii horeba gobolka Awdal oo markaasi hal ku taagnaa oo Somaliland inta badan dadka gobolkaasi degay ay ka soo horjeedeen, haddana waxaa markaasi go'aanka Somaliland xalay ka soo baxay uu albaab markaasi u furay dadka deegaanka oo markan fursad dahabi ah u arko in ay si guud uga hor yimaadaan wax kasta oo ka soconaya gudaha Somaliland. iyagoo markii hore diidanaa, haddana waxaa la doonayaa in lagu qasbo in bandhiga buugga xeer ciise lagu qabto gudaha magaalada Saylac oo markaasi beeshar Samaroon ay u aragto meel lama taabtaan ah oo iyadu ay leedahay, isla markaana ay u aragto in aan buuggaas iyo wax lamid ah lagu qaban karin. haddaba xaaladda ayaa markaasi u muuqatay inay kacsan tahay. weli barnaamijyadii ayaa soconaya. saaka aroortii hore ayuu barnaamijyada markale dib u bilowdeen. dad careysan ayaa markaasi weeraraya ciidanka booliiska. dad kale oo qoryo sita oo markaasi dadka deegaanka ah ayaa dhankooda markaasi u muuqda in ay xaaladdu markaasi faraha kasii bixiyeen oo ay si toos ah markaasi ciidanka booliiska ula dagaalamayaan. guud ahaan wixii soo kordha wararkeena dambe ayaa ku daawan doontaa. hadday tahay booqashadaadii ugu horeysay nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo si aad markasta u noqoto daawadaha ugu horeeya ee xila xogaha iyo warbixinada guud ahaan markaasi Soomaalida, si gaar ah xaaladda kasoo cusboonaatay Somaliland gobolka markaasi Awdal magaaladiisa Saylac iyo Boorama. calaamada subscribe-ka noo taabo. aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo. maamulka Somaliland miyuu ku qaldan yahay in markaasi uu dhaha buugga xeer ciise lagu qabto magaalada Saylac kadibna xaaladan markaasi dhibaatada iyo sidoo kale dagaalka abuurtay ay ka dhalato? aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag sida aad u aragto in bandhiga buugga lagu qabto Saylac iyo sidoo kale in markaasi barnaamijyadan iyo sidoo kale dadka dhigayaba ay xaq u leeyihiin inay diidaan.